bal waxay waxyaabaa iska qosliye maalin baa la yidhi ducee xataa ducadaa lagugu qabsanaya maalin baa qodaykeenii coronaviruska ee guddigeennii somaliland ayaa lagu soo galay xafiisay fadhiyaan markaasa maxaa kuwii waaweynaba fadhiya markaase maxamedow nin lagu jiray ilaah baa oge waa tan xanuun baa jiray ducee base mar ma iga daysaan base maxaa dhacay waxay isu duceeyaan dadka isu calool fayooge waa maxaad qabtaa maasaan kuwi naxaliyoo dhan iga buuxa waa maase ducee bal haddii laakiin iga maalmoodin waa ducaynayaabaan ducadii bay haddana ka xanaaqeen dhegeysta waxaan idhi ilaahayow intii u dhimatay xanuunkaasu ku dhacay ilaahu caafimaad sariicana siiban may intii u dhimatay ilaahu dambi dhaaf iyo janno geedan intuu hadda hayana ilaahu caafimaad sariicana sii intaan caafimaad qabsana dad yaro masaakiin aan nahay oo aqoonsi haysan iska liitay ilaahu na dhaafi baa noo keeninba haddii ayse xukunkaaga noqotay qadarkaaga ilaahu habka saami qaybsiga kuraasta baarlamaanka noogu qayba laba arrimood ka xanaaqada baa sheekadani ka saabsantay aniga lafteeda itaabatay inta hadda joogay soo telefoonka waa ka xanaaqda soo dirtaa badan soo dirta markaan anigu saxaga farxad bay leedahay marka qof dibadii jooga nala soo hadlo waan farxana idinku soo waa ka naxdaan bal marka xaga la kala soo hadlo markaan nin ragga waxa la sheekadan waa dibadda waa sheekayro gaaban waxa la waa dibadda waxay kaloo sheekadii halkudhadan ii sheegay ku saabsan tahay conflictka ama isku horimaadka had iyo jeer dhaqankeena iyo teknolojiga farsamada cuntada maarta isgaarsiinta cusub had iyo jeer ka dhasha min qolooyinka idan xaduuraa ee had iyo jeer telefoonka idiin soo dira ee idin kala bartay weliba kiina wax bixiye ka kale oo talkii kale yaqaan oo bilba nin u soo dira telefoon oo sidaa ku nool ayaa nin salaad saxana ah ayaa maalin salaadii duhur dhow ayuu nin la hadlay oo gacan weyn oo waliba wax ka sugayay ninkii baa masquul baa heela ku soo celinaya telefoonka salaadii baa la dhimay oo la qiimay uu galay isagoo taxiyaadkii fadhiya ayaa telefoonka soo dhacay wuu eegay mise waa ninkii ma soo qabtay yiri salaad baan ku jiray xawaaltay baan tagay salaad baan ku jiray xawaaltay baan tagay markaasuu dahabshiil wuu iska dhigo salaadii buu dhamaystay salaadii markuu dhamaystay mid fadhiyo garanaya yiri war taalimiyo yaa ku salaad dul bishra allah allah asil waa dibadda والله سهلة. ويك سهلة. ويك سهلة. وهذه شيء ويقع فاتة. فالحمد لله تهرج يلا فروين. ما تقع فروينات. هاي. هبلوه إلى هاي مو بقى يده هبلوه قريشة. رجع يلا فرتوين. رالله هيقع هذا. وحل يا ويك سهلة. من رجع قلت هبلوه واستراد ميرا. waxay yiraahdaan rag fool xumo ma leh alla yaa ilaahu dambigooda dhaafay weyna fool xumo dhan rag bay ku dhantay maxaa waraabayna dhax fadhiyaad kuwii marka min baashi fool xumo ah ay kulligeed ku dhantay tina aad muddo filfil sanku bartanka ka jaban yahay indha aad muddo in madax loogu dalooliyay abku ilaa halkaa yahay garku ku riixan yahay qoorba aan lahayn deeca leh gacmu gaagaaban yihiin wagda iyo qallaafaba leh dharka intan leeg midabka aad moodo digsi dabadii hadda midabka aad moodo digsi dabadii laakiin xaraga jecel oo reer hebel oo laandheera anna ilaahay nooma keeno kuwaas xagga laandheerayaasha isaga riixayna oo laandheera oo subaxii 3-4 jeer muraayada isku soo eega oo dharka iska bedela waliba guurmeera oo markaa hamiguu galay ayaa subax isagoo ka soo baxay aqalkii oo kalarka toosisanaya ayaa inantii u ku riyoon jiray oo tiir ka leeg oo boqol kala baxa
oo niqaabkii xijaabkii baa u dhan yahay ayaa intii soo hortaagtay tiri makaan farxad buu rumaysan waayay dhegeysa samaaniya wasara inamari uu daba galay dama gaalaya hogo min reer hebelaana oo ka sii hebela reertay waa caynka mid la xoolo u dhiibaana nin guurmeelaana nin gayaanaana waxa sida lagu malay suuq malay waxa isagoo suuqyada isu ka sheeg reer ma tahay kulli qoladaas tahay anigu intuu maanta calafkaaga ilaafinaysi waxa halqiyaba suuq tahay si waday ay nin saayiqa u keentay waa ragga sameeya kaatumada iyo silsiladaha iyo reeraha yaga ninkaasay u keentay ninkii markay u keentay ayay tiri waa kan oo dhaqaaqday ninkii saayiqa ahaa ee kuwa kaatumada sameeya qosol buu rabtay kii gaadaayo maxaad qoslaysaa markaasuu way ku soo heshay maxaad leedahay way ku soo heshay masoo intani mar dhaweyd bay timiyo waxay tiri kaatunii samee carbuuna waysiis dabeedna halkaa paska ayay tiri sawir shaydaan ii geli markaa waxaan ku idhi adigu shaydaan garan maayo anaa kuu keenaya sugbayta waa kale aan ku sawira sugbila ku sawira laalaha laga hado waxa way ku soo heshiinayaan rag badan bay ku xalaaqa markay akhriyaan buugaaso halka sheekooyinka buugga ku jira sayro tusmila hanu saaxiibnahay baa ku jirta ma sha Allah wada xusay wallahi tusma laakiin maalin weyd bay cadhootay waana dagaalantay okay waxa la yaa tusma dagaalantay tusmo ayaa dagaalantay aan iskiin bare ee tusmo waa islaan sheekada ku jirto jaacno uu ogyahay oo buug dhameyn ka samayn doonaa gooniyada tusmo waa islaan guri jooga hooyooyinkeenu horaa oo hooyo dhaqameed ah waxay magaalada ka taqaanaa waa Hargeysa gurigeeda iyo labada macdaar u dhow iyo sariibada caruurtadii markay kale kuwii ayeedu ahayd ayay haysaa hawl kale adduun ma taqaan xaggan tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta iyo moobilada iyo waxaan hadda aynu galayna waxay ka taqaanaa qabashada moobilka qabashadiisa xitaa dirista ma taqaan caruurteeda u dirta marka wal hebel ii dira numberka maalin markaa iyadoo ka timid dukaan dhow ka soo qaadatay xoogaa muusa waxa badaa oo bac ku seeta ayaa meel suurina waxa kaga hor yimi in isagu bahalka ku talax tagay oo mobile smart jeebka ku sita oo earphone-kii dhagaa ugu jiro oo microphone-ku u dhow yahay oo switch-keena gacanta ku hayaba oo markaa nin call u diray iyana waxay u taqaanaa qofka telefoon ku hadlaya inuu dhegta ku hayo bahalka ninka dhegtiisa kumay arag wuxuu ku hayo markuu u soo dhow yahay baa ninkii ayuu salaamay wuxuu yidhi assalaamu calaykum islaanteena waxay moodeen isaga iyada salaamayo maase tiri calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu inanka garanba maayo talow majaarka talow mise waa kuwii aanu dhalay buu u dhaafayo isagu maqli maayo wuxuu sitaa microphone-ga dhagaa ugu jiro isla maqli maaye wuxuu yidhi baryahan kumaan arage ninkii buu la hadlayaa baryahan kumaan arage xaggaa jirta tusma waxay moodeen iyadoo u sheegay waxay tiri dhaga maadaama macdaarka hebel iyo aqalkaba dhaafo xaggaad iga weyy isagii baa la hadlaysa isagoo maqlay buu hadalkiisii wado wuxuu yidhi ninkii musaxaadaya markaa ha igala xusoon mid iyo laba iyo jab waxaad haysee wuxuu nii soo tuur tusma waxay moodeen inuu muuskin ka bariyo waxay tiri kugo kacad kaamir ama waxaad ii salaamaysa xabadaha muuskan carruurta wado iga walaa jabka siinay muu maqale way soo socoto markay garab marayso ayuu ninkiina ku yidhi waxa ma hayo show inankii baa haddaan waxba hayn caawa xaggeen isku aragnaa tusma muuskii bay ku dhirbaaxday oo tiri qallaadi kugu dhacday bal intaa leekay wax lagula hadlayaa isla seebayaa eeba waa la istiri waxa la tusma dagaalantay waxa weyn baalkan dagaal badan baa ka dhaca dadkuna ma wada yaqaan laynooma siina markii hore tababarkiisa markaas sheekooyin badan baa ka sameeyay tani ka mid tahay tusmo maalin dhaweyd waxay aragtay qolooyin aan koofiyadsanin waxa weeyaan waxa la yaa mucaadkida daami shirku leh daami ma taqaani waa buqadda daahirka ku taala bartamaha Hargeysa dulmanuhu degan yahay dacwadiisu mustajaab tahay daami kool waxa la yaa buqadda daahirka ku taala bartamaha Hargeysa dulmanuhu degan yahay dacwadiisu mustajaab tahay daami kool markaa halkaas ayay deg islaantu iyadoo subax ku sii socota waa tusmaada oo sariibada ka timi
horta sidaan telefishinadii daawatay damburnadan dhacay xiisadahani waxaanay daawatay waxay aragtay xisbiyada gaar ahaan kuwa mucaaridka oo waa kabtamaynaa anagu siyaasad ma galle ragga hogaamiya wada bidaarliya kuwa ku xigaana bidaarliyi waxay u qaadatay waxay bidaarliya inay mucaarid yihiin marka maalin sariibada ka timi oo islaan cibaado leeyahay wada socdaan oo ay daami sii gelayso ayaa waxay aragtay shan lix ragga soo jeedo kala xeerada sii socday aragtay badna yaa cibaado ma maanta daami mucaaridkee baa shir ku leh markaasay maxaad aragtay waxaan wada xeerada sii socda meedan kale tusmo wax xariifada waxay la socotaa adduunyadu kulba halkay marayso iyo magaalada iyo Somaliland kulba waxa ka taagan laakiin berigii dhaweydee uu COVID-19 kuno qaaday dadka waxa aad loogu celinayay farxasha faraxo farxalo sheekadu waxa la faraxo farxalo waa sheeko aad u wanaagsan in qoolinka qayla raaliha iga ahaadeen dad wada ka mamnuuc ma la xalaalayda haysay markay dadka qayla waa ragga waxay u kala baxaan dhowr min waxa la yahay waa sida leerko kale day aan night baliya habeen iyo maalin buu cunaa ilaa uu Umar ma bas saxdo isagu marka lacagta ka maraysan buu saxdo waxa la day aan night qoolin waxa la yahay habeen noolayaal oo waa vampires qoolama waxay cunaan maalintii minka ragga habeenkii cunaa ee habeen la soo jeeda marka waagu bariyada seexda oo faarax loo jiray oo aan sanadadan magaalada arag xitaa waxoogaa yaroo raggiina dibadda joogaa u soo diri jirteen oo ku noolaa maalinta ay soo dhacdo nin buu qaadi jiray qaadka uga soo qaada dahabshiil isigoo ma tegi jirin ayay maalin noqotay qasab inuu soo kaco waxaana qasab ka dhigay inan uu isagu u ahaa weli oo bixinayay baa leeyahay ku soo kac dabadu meermeeriye laakiin waa laga yeeli waayay subaxii buu soo baxay isagoo maqlaansan oo soo labistay magaalada uu soo baxay fitiinkii wuxuu wallahi bariyaha maad quraacan sanadaha 20 sano markaa xiraysna bal maanta quraaco maxaad buu galay intuu wuxuu ka cuni jiray casho maxaad buu galay farxalkii biistaay waxaa kay oday duwa anteena markaas qolada xamarka oday bidaarta labada tama halkaa ku leh labada halkaas laba anteena ka taagan oo dhaxdu maran tuarka oo cirada oo lidumay markaas oo garcad leh markaas ku yiri farxalo iska foorsado abaal ma ku foori ayuu eegay si uu taagay maxaa ku taagay farxalo mid ka dambeeyay faraxo waadiga farxalo raggaas way badan yahay sayara waxaan malaleeyahay waxaan ka baqayaa in yar inay fahantii baan ka baqayaa in yar inay fahantii baan ka baqayaa faraxo farxalo